السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنت دور سؤالات مقوهنا من وجه وبسان. إن شاء الله وحي إلهينا فهسيه. إن شاء الله سفيان. سؤال شو كبد وحوي روح ذا شركة هالكيكة جت شرتان. روح. أستغفر الله. روح ذا شركة هالكيكة جت شرتان. شركة كودن بيكون ذا شرتان. كل روح ذا شركة كودن بيكون ذا شرتان. marka meesha ay ka baxdana way dhimataa imika gacanta marka la jaro gacantaas way dhimanaysaa Soomaa way dhimanaysaa marka ruuxdu jidhka dhan bay ku jirtaa nabiguna wuxuu yiri salaatu wasalaam markuu ruuxda ka waramayay qofku markuu dhinto ruuxdu waxay raacdaa araga oo indhaha waa ka qofku saraw saaw kala qaada yatbacuhu albasar arag wuxuu raacaa ruuxda jidhka ka baxday marka ruuxdu waa wax jidhka ku wada jira waxa ay tahayna lama garan karo laa yu'raf cid ka sheegan karta oo ka warrami karta ma jirto ilaahay baa quraanka wuxuu ku yiri wayasalunaka 'ani ruux qul ruuhu min amri rabbi wama utiitu min al-'ilmi illa qalila ruuxdu waa amar ilaahay cilmi iyo aqoon uma leehin waa wax ilaahay u gaara marka ruuxdaas jidhka oo dhan bay ku wada jirtaa arinteedana lama garanayo meel ay jidhka kaga jirto aan soo taaban karno dhaahno halkaas ay ku jirtaa hal hayo intaanay qofka ka bixin ma jirto waa wax jidhka ku wada jira weey سؤال شلوان فرق udhaxeeya nafta iyo ruuxdu waa maxay nafta iyo ruuxdu labada kelmadood quraanka iyo diinta iyo xadiista intaba nafs iyo ruux baa la dhahdaayo waa isku midun inta badan waa isku mid wax farqiyo u dhaxeeya ma jiraan waa qofku markuu dhinto ruuxda ka baxda marka uu dhinto sidoo kale waxa nafta ka baxda nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam marka qofka ruuxda laga qabto ida qubida الروح روحنا مركا laga qabto araga ayaa ay ruuxdu araga iyo ruuxda israaca marka waxay sheegaysaa xadiiskaasi in ruuxdii ay jidhka ka baxday quraankuna wuxuu sheegayaa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha in nafta ama nafs ilaahay oofsado oo jidhka ka saaro marka marna ruuxda jidhka ilaahay uu sheegay in laga saaro oo nabi maxamed inooga warramay marna nafta la inooga warramay marka nafta iyo ruuxdu waa isku mid wax farqiyo oo u dhaxeeya ma jiraan waana waxa qofka qof ka dhigaya nafta iyo ruuxdu waa isku macne waana isku mid saasun bay maaragtay quraanka iyo xadiistu ay tilmaamayaan noocyo nafta oo kala duwan ma jiraan ha naftu dhowr nooc bay leedahay saddex nooc baa quraanka lagu sheegay mid waxa la yiraahdaa amara bisu inna an-nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi suuratu yusuf baa lagu sheegay taa waxa la yiraahdaa amara bisu dadka waxay fartaa xumaan waa naf dadka waa naf wax faraysa xumaan naf baa jirta iscanaanata la uqsimu bi yawm al-qiyamah wala uqsimu bi nafs al-lawama nafs al-lawama waxa weeye nafta dadka iscanaananaysa naf kala jirta oo ah nafta xasiloon waana nafta lagu sheegay suuratu al-fajr ya ayyatuha an-nafsul mudma'inna naf yahay xasiloon naftaasi marka waa mid xasiloon saddexda nooc ee nafta lagu sheegay quraanka mid wax xumaantay farta midna way canaanataa midina way xasiloontahay marka ta xumaanta farta waa ta shaydaanka haday jaraane la jirta ee shaydaanka la socota xumaan mooyane wax kale kama shaqeyso waxaana lagu gartaa bisha ramadaan marka la xirxiro shayaadiinta la silsiladeeyo shayaadiinta madaxdooda oo dhan hadana qofku soo dambiye ma galo maxaa ku sababay inuu dambiye galo iyadoo shayaadiintii waaweynaa oo dhan la xiray naftii ayaa waxay dadka faraysa amara bisu xumaan bay faraysa naf kale ayaa iscanaanata maxay isku canaanataa laba dhinac baa noqon karta inay wanaag isku canaanato oo wanaag ba khayr iyo amal maaragtay aanay la iman bay isku canaananaysa oo tusaalahan xajkii baa dhaafay markaas waxay dhahaysaa haddaad xaji lahayd maanta khayr inta leeg bad heli lahayd haddaad halka ka qayb gali lahayd waxa soo wanaaga ku iman lahaa oo ilaahay bad u dhawaan lahayd raali ahaanshaha ilaahay bad heli lahayd macnaha way iscanaananaysa naf kale jirto iscanaanata oo wax weeye taasi xumaantay iyaduna isku canaanataa waa mid khatar ah marka waxa ku leedahay gabadha halka mareysay cabaariyaha waaweyneed iyo timaha dhaadheereed hadii waliye bal ta ku dhaaftay eeg way ayuu leeyahay taasi waa naf wax canaananaysa oo waliba kugu canaananaysa maxay xumaanta kugu canaananaysa subhanallah nafna waa naf xasiloono waa nafta marka de iimaankeedu buuxsamo ay mutmaa'in noqotaa culimada islaamku waxay sheegeen saddexda nooc baa nafta jira laakiin saddexda nooc sida xaqiiqada ah qofka ayay ku wada jiraan saddex xaaladood oo qofku uu maro weeye oo mar waxa dareemaysaa inay marka iimaankoodu buuxsamo qofku soo ma dareemayo inay naftiisu xasiloon tahay
mararka qaarkood soo qofku xumaan dhaaftay ribo ayuu maaragtay isku canaanay alla ribadaa bangiga haddaad lacag ka qaadan lahayd ribo yar bay ahayd oo in yar baad iska bixin lahayd buu leeyahy subxaan allah kaasi muxuu sheegayaa markaa waa xumaantiiba ku canaananaysa waa isla naftii ayaa marxaladda xumaan ku canaanadka gaadhay marna wanaagay kugu canaanan kartaa oo wanaag ku dhaafay salaadii allah haddaad waqtigeedu ku tukan lahayd si wanaagsan bay u tukan lahayd wahaakada marna waxa waa naftiba xumaan ku faraysa iyadaabaa ku amraysa xumaan sidaa awgeed saddexda noocee nafta ahee qur-aanka lagu sheegay saddexduba qofka unbay ku jiraanoo waa marxalada ay marto waana sida xaqiiqadaa saas weeye noocyada naftu waa sidaa waa qofka unbaa marxaladihiisa un ay tilmaamaysaa wallahu aclam qabriga ma nafta la cadaabaa mise jirka qabriga waxaa lagu cadaabaa horta nafta la cadaabaa waayo waxa jidhka ka baxay soo nafta iyo ruuxda may ahayn sida saxiixa ah nafta la cadaabaa laakiin culummadu waxay sheegeen jidhkana way soo gaadhaa oo marka cadibaada la cadaabayo jidhkana way soo gaadhaa mararka qaarkoodna ilaahay calaamo ayuu muujiyaa ama astaan buu ka muujiyaa qof dhintay oo munaafiq ahaa ama gaal ahaa oo cadaabulqabri leh ilaahay baanu ka magan galnay inuu cadaabta allah inaga badbaadiyey qabriga iyo aakhiraba mararka qaarkood baa ilaahay wuxuu ka muujiyaa meesha calaamo iyo mucjiso ay dadku ku gartaan in meesha cadaabi ay ka socoto marka jidhkii laftigiisii dhintay ayay soo gaadhi kartaa laakiin sida asalka ah nafta la cadaabayaa jidhkana inay soo gaadhayso wax diidaya male jidhkana way gaadhi kartaa wallahu aclam ilaahay baana xaq og malaa'igtu naf miyay leeyihiin malaa'igtu horta waxa weeyaan waa arwaax iyo jismi labadaba way wada yihiin sida inagu sow ruux iyo jismi kama koobnin saasoo kale ayay ka koobayin lakiin way naga duwayn waa noole iyo makhluuq kale oo inaga duwan laakiin jismi bay leeyihiin jismu nuuraaniya jismi maaragtay nuuraaniya oo nuur ah bay leeyihiin oo inay jismi leeyihiin waxaa u daliila suuratu faatir ilaahay soo kumuu sheegin jaacili lmalaa'ikati rusulan ulii ajnixatin mathna wa thulaatha wa rubaac yaziidu fi lkhalqi maa yashaa ilaahay markuu ka warramay malaa'igta wuxuu sheegay inay baalal leeyihiin baalasha imika shimbiruhu sow jismi maaha sow jidh maaha waxa weye waa saasoo kale oo malaa'igta wuxuu leeyihiin ba ilahay yidhi ajnixa baalal bay leeyihiin baalashaasaa waxa qaar ilaahay wuxuu siiyaa 2 qaar 3 qaar 4 kuwa qaarna waa aragtay waa uga badiyaa oo malaku jibriil oo kale 600 oo baalood buu leeyahay hal baal oo ka mid ah baalashiisaas ayaa u foqo oo dhan arlada ama samada oo dhan daboolaya subxaan allah weynida ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala oo jidhkiisa ama markaa baalashiisa ay ka daadanayaan macdano badan iyo jawharada iyo luul iyo dheeman ayaa baalashiisa markuu kala bixiyo ka daadanaya subxaan allah waa quruxda ilaahay malaggaa uu siiyey subxaana wa tacaala marka malagii muxuu noqday wixii laga abuuray nuur buu ahaa laakiin nuurkaas jismigiisu waxa waa nuuraani jismun nuuraaniyun waa jidh nuur ah oo ifaya buu leeyahay oo nuur ah inuu nuur yahayna dee qur'aan waxaa laynoogu sheegay diintaan inoo sheegtay inuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in laga abuuray khuliqat min annuur nuur baa laga abuuray shaydaanka iyo jinka laftigiisuna waa jismi naari waa jidh naareed oo naar baa laga abuuray sida inagu aanu nahay jismun turaabi jismi maaragtay ama jidh kasoo jeeda ciidda kasoo jeeda ayaguna waxay u yihiin naar bay kasoo jeedaa laakiin waxay nagaga duwan yihiin malaa'igta iyo jinku labada waxay nagaga duwan yihiin innaga kow ma arki karno oo awoodda aynu ku arkayno ma lihin laakiin waxay kaloo nagaga duwan yihiin tashkiil bay qaataan waxa weeye qof bani aadam ay si soo ekaysin karaan insaan oo malagga jibriil oo kale markuu nebiga u imanayay wuxuu isku soo shabihi jiray isagoo nin ah xadiiskii jibriil ee caanka ah waa garanaysaa markuu malaku jibriil u yimid nebiga iyo asxaabtiisii ee uu lahaa mal islaamku waa maxay iimaanku waa maxay ixsaanku waa maxay wuxuu u yimi isagoo oo nin maryo cadcad sitaa timo madow markaa isagoo nina buu yimi saxaabiga inta badan uu isku soo shabihi jiray waxaa loo yaqaanay dixya binu khaliifa alkalbi dixya oo nin aad u qurux badnaa ayuu malaku jibriil isku soo shabihi jiray marka malagii wuxuu qaadanayaa maxay jidhka insaanka oo kale wuu isku sawiri karaa sidaasoo kale ayaa jinku wuxuu awood u leeyahay isaguna in uu isku sawiro bani aadam ayuu isku soo sawiri karaa oo xadiiskii isaguna saxiix ahaa abu hurayra isagoo oo maaragtay sadaqada ilaalinaya ayuu oday jin ah oo shaydaan ah ayaa maaragtay habeenkii uu iman jiray oo ka xadi jiray timirta iyo sadaqada ka xadi jiray taas waxay sheegaysaa inuu shaydaanka iyo dhammaan jinka oo dhan ay bani aadam iyo xayawaano kale iyo waxyaalo kale isku sawiri karaan malaguna saasoo kale awooddaa waa leeyahay calaa kulli xaal isku soo wada duubo malagu naf iyo jismi labadaba uu leeyahay laakiin inaga kumid inaga inaga duwan weeyaan oo khalqi iyo makhluuq kale oo inaga inaga duwan weeye wallahu aclam ilaahay baana xaq og subxaana wa tacaala
شكرا شيخ. jazaaka allahu khayran. adiga su-aasha u dambaysa haddaan ku weydiiyo halkeebaad is leedahay ruuxdu way kaaga jirtaa? ruuxdu iyo naftu waa isku mid baa. ruuxdu iyo naftu waa isku mid sidaan sheegnay. marka ma meel gaaraba dareemaysa inuu qofka bani aadamka jidhkiisa inuu ku jiro mise jidhkao dhan buu ku wada jiraa? may jidhkao dhan buu ku wada jiraa. ma la kala garan karo jidhkaaga iyo ruuxdaadu kay kala tahay. labadu way isku dhex jiraan. waana sababta ilaahay uu yidhi aqoon iyo cilmi uma lihidin, mana garan karno. aadamuhu hadday isu tagaan ma garan karaan ruuxdu waxay tahay. waa amar alleh, ilaahay unbaa ogtaa subxaana wa tacaala. صح. والله